hadda Kenya baddaasay nagu haystaa waa maqlayseen waa idin sheegay hadda ka horna 1957 maxkamada dacwadeenu tiilay anaka Itoobiya ay leedahay baydhaba ana iskale maabkana waxaa ku taal maydhaba magaalo yiraahdo anaka kalluun meeqan ka qaataa bish can you imagine miisaaniyada aan ku faarayno hadda leenahay 300 milyan ay gaaray bilyan lacag ku dhow oo kalluuna bish naga baxdo iyo waxyaabo kale hawadeena inta martaan noo wada xisaabneen badeena xisaabsaneen sanadka dhowr bil malaayo ugu badan 5 bil waayn bilaa kalena meelaha anagu aan ka raadinayno meelaha ka hooseeya shabakad inta dhigtaan ka qaata shiini waa u fasaxna qaada dhahan hadda xeebaha dhanka Soomaaliya dooman oo Iiraaniyiin ay leeyihiin joog kuwa Soomaalida shidaal siiyaan lacag la'aan ah shidaalkan qaado kusoo jilaabo waxa aad heshana waa kaan gadana shidaal free oo ku siina dawladda cashuur kama qaadato iyagu waxay qaadayaan wax kasta oo macquul ah hal laga qaaday malaygan waa wax tarmay sida arigan oo kale asiga la baabina meel xukuumadda ku dhalahay wax xoolo ari moorad oo kugu jira moorada aad baabiiso kale moorada da baabiyo maxaa dhacay ariga duulkaas u gala bahala cuna oo meel u soo hoydo mal halba meel ku baxa dhibaatooyin badan marka oo nabadgelyo xumada iyo dawlad la'aanta ay noo keentay ka dawlad ma qabna Soomaaliya oo dhan controlsho waxaa markayna horeba markii quruxda dhulka Ilaahay nasiyo aragteen isticmaalku maanta kaliya kama fikir berino oo fikira 5 Soomaaliya loo qeybiyo waxaana loo ku qeybiyo waa isku luqad waa isku dhaqan war hal mire maxaa loo dhihi waay maya 5 loo qeybiyo 5 la qeybiyo laba soo raacdo labada la kala gooyo qayb walba oo labada kamid ah leedahay 5 state hadana loo sii qeybiyo waana arki doontiin haddaan sii joogno oo aqli ilaahayna aanu toosiya aqli lala imaan 5 maamul goboleedaad si kala burburaya maamul goboleedaad wuxuu sii naqanaa laba madaxweyne ee la soo kala go'a waana laga shaqeynaa waa la maalgelina haddii la arko adiga iska lahaydba inaad u dabqanayn marka waxaa loo baahan yahay dhibaatadaas wax ka weyn waa in khayr nimco kastoo lagu siiyo naqsigeeda yeelan kartaa waa inaad ka fikirtid marka how wadamada qaar waxay samaystaan committee aan dawlad ahayn 50 dad oo aqoon-yahan dad oo khibrad leh oo meel fadhiisto oo dawladda feed gareeyo siiyo sharciyada loo baahan yahay heshiisay la galay intaan la gelin baraanka qorshaha 10 sano 20 sano 5 sano dejiyo ee kan ha lagu raacayna dawlad haddii isbedesho 100 mar shakhsiga isbedelay baa nidaamka soo bedelay systemki 2 sano waxa la qorsheeyay ma qabsoomeen maya maxay u qabsoomeen hala sameeyo sanadka 3 sanadka 10aad waxa la qaban doono hadda la sii dejinaa nin kastoo yimaado dhaxdan wuxuu ku shaqeynaa nidaamkaas ummaddu ay degsatay implementationkada loo keenay maana asugu inuu tiimaado wax cusub oo ila wax hor iga horeey aniga iga hor dawlad ma jirin aniga iga hor nidaam ma jirin aniga iga hor wasaaradda ma jirin gudoomiye degmo waxa laga rabaa kii ka horeey waxa uu bilaabay oo ummadaas baahideeda ahay inuu ku sii daro qaybta kale taas ma sameeyay barwaaqada faraha badan oo Ilaahay ku siina cadawgaaga baata hadda Kenya ay baddaadi qayb u soo hawoonayso waata Itoobiya ay leedahay dekadaha ciidan badeeda qabaa'ana ku ilaalina kuwa shirkooda berino waxa arkay Muqdisho iyo Kismaayo maraakiib Itoobiyaan oo ku xiran oo marine waa lagu leeyahay oo baahana ilaalina hadda Kenya baddaasay nagu haystaa waa maqlayseen waa idin sheegay hadda ka horna 1957 maxkamada dacwadeenu tiilay anaka Itoobiya ay leedahay baydhaba ana iskale maabkana waxaa ku taal maydhaba magaalo yiraahdo waxaa loo saaray nin markii daba naqa doono xogeeyaha guud ee UN iyo guddi 3 dawladooda maabka isticmaalkay keenay Talyaaniga waxaa leeyahay maydhabo waxay jirtaa dhinaca xuduud beelaadka ka xagga ee tan ma ah may weeyraa may baydhabo waaye meesha la qoray ee maydhabo waa khaldantay baydhabo ee dacwadii go'aan laga gaaray waxay rabeen xurriyadda ka hor in loo xukumo iyadoo wali la xukumo dacwadii taaganta xurriyadda qaadan dacwadii ma soo noolay karaan la go'aan weyn lagama gaarin marka xurriyadda marka qaadanayna soo xorey qaateen iga dhaaf 64 sano dagaal ku bilowday taas maqaalkaas oo dhan waa idin soo qoray dacwadii maydhabo iyo baydhabo inay ku dacwadeen oo leeyahay war ma jirto maydhabo wax leeyahay oo gudda caalami oo dhaxdhaxaad loo saaray oo dacwada ay lagu sheegteen inay leeyihiin
berri marka dhul badan oo hadda Soomaalida ayaa la sheegay doona hadda waxaan dhuminay jasiiradda Sukatara iyo anaka Yemen noo dhaxayso nasiib darro waxay raacday Ingiriisku waxyaaba oo naga jaray kamid ah waxaa la raacay Yemen la raacay Yemen ma timaado hal mar raadi taara laha fadhiyo markaas oo 6 bilo hal mar oo la xiriira uma badhow anaka noo dhowda jazaa'irka kale anaka iyo noo dhaxay kay hadii meesha badda ay sheeganayso cabirka oo sax noqdo dhinaca kale aadayaan marka waxyaabo badan maqaaladaas waa idin soo qoray hadda dib u fiirsiin iyo waliba tixraac leh iskama qoraysaa loo dheeyahay alifay iyo kale eebi inta meelo laga tixraaci karo xataa waa idin soo sheegay marka khayraadka ilaahay nasiiyay waxaan diidahay in loo qaato macdan hadda shidaal leh petrol blockable ifaati blockable wax weyn waaye laakiin saa u maalin galaysid ku xarata nabadgelyo xumar waa abuureen qabaylka la isku diri karaa waa la qoda adoo isdagaashid dagaal la abuura waana soconaya maalinta u baahdo waa laakiin waxa soo dhaw waxa loo baahan yahay tawfiiqdan ilaahay mahalishiyo khayraadka marka ilaahay ku siiyo adiga Soomaaliga ee caataha tacbaanka halkaas adduunyada afarteed gees u kala qaxnay oo anaka isdilay isma dil wasu joog jiray isma dili jirin isticmaalka goor Soomaaliya qofku wuxuu ka lugay jiray kismaayo soo xajka u socdo dad awooyaasheena awooge aabahay dhalay walaalkiis markuu oo yimid cilmiga ku baray markuu ka lugay xajka u lugay waxa uu tar ma lahayn 4 sano sii maqnaa maxuu cunay cid u tago Soomaaliya musaafir waa xajka u socda iyada hooynays musaafir lama taaban jiro geeska gees u baxay ilaa xajka u tago isma la jir nabada hajir isticmaalka yimid qabaa'il iyo waxba roosii kala qeybi waa ahayn qabaa'il sumadan lahayn wala isku ixtiraama martida cid waxay qabiil kala ku duusha dambi ahayd xaalad isku dagaalada la abuuro markaas xuduudadii qabiilada la isdhaxyaacay iyaga colaad laga dhax abuuro nabadoonka mushaar loo qoray sida hadda dad badan ma iyaga mushaar loogu qoro sida meeshaan u degin khayraadkaagu intuu jiro marka haddaadan xiskaaga kulmin waxaa imaanaya dhibaato ah in khayraadkaagu intuu la egyahay dhibaatada ku gaaraysana ay la ekaato ilaahay hana waafajiyo tawfiiqda kuwa isfahma allaha naga dhigo dhibaatada haddana hayso maalin waxaan ka fikirayna anigoo dhowra fikir sukaan ah shaqo la'aantaan maxay tahay shaqo arday jaamacada ka soo baxday iskoola ka soo baxdo badanaa joogta mana shaqeeyaan waxaa noo soo baxday inta lacag aan haysana keliya haddii xataa ida wax soo saar ahayn loo isticmaalo mushaar ahaan qof baa muddaa in laga weynayo waddanka kulli shaqa loo abuuri karaa lacagta aan haysana bis haddaan si waysa u isticmaalno dadka waxaan sii karnaa shaqa mushaar ay ku qaataan cashuur lagu soo celiyo bisha kale la siiyo mushaarkan hadda la qaato weliba ka wanaagsan lacagta hadda aan haysana keliya iyo tan aan heli karno ee cashuuraha nooga dhunto malaayiin boqolaal milyan oo cashuura oo hay-ado badan oo waddanka jooga ku waajibtay boqolaal milyan aan ku dhahay aan la aruurin sanadkii oo si loo dhaafay adiga